السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في Somali Speakers Community سو دواذا وصفية فارح باندي أنا بقول جو دكتور أبشر عاوي وإدين دادهين دونو ماركتي قاركين إن حبين إدين تابعي كرتو لكن واقلب أنا حقينا أو 5 PM UK برنامج كإدين ونو عاوي وحواي ثايرويد كإدي بعتذ أولي سايكولوجيكال لكن before أنا أوجد قليل وحروا إنا إدي دو كلين واد ما تسنتهين أنت شير جريسي لايف كي هرو aan soo sameyn oo ka hadlay vitamin D ga dhibaatada uu leeyahay iyo waxa uu geysto sida wada ogtihiin dhibaatada vitamin D ga dhibaato aad u weyn ayay ahayd alxamdulillah waxaan u furtay videogaas 10 minute aan duubnay aniga Dr. Abshir Khair Allah siiyo inay dad badan indhaha u furtay oo ay dareemeen dhibaatada ma aragtay ee xagga ilmahooda oo kale ayaga laftigooda oo kale shaqo isaga ordi jireen laakiin naftoodii aysan ogeyn waxa ka dhiman iyo dhibaatada depression ka u keento hadduu vitamin D ga u yaraado so maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah wa alaykum salaam soo dhawaada waxaan idinka codsanaa insha Allah share garay waa maaragtay codsi ayaad ka tahay waa 10 minute aan kala hadli doono dhibaatada nagu hayso thyroidka anigoo doctorku soo casumay uu ka hadli doono kooska iyo dhibaatada uu leeyahay so ku soo dhaw doctor adigoo ka dhawaajin doona insha Allah anigana gadaal ayaan kaga hadli doonaa waxyaalaha psychological ee u keento iyo dhibaatada anxiety ee dadka ay ku qabaan iyo depression ka oo thyroid ka xagiisa anigoo knowledge keega u san ahayn xagga medical waan u gudbin doona dhakhtarka ما شاء الله عادي هذا first of all أنا أدواي وأنا كم عصانتا سفيا شدة وناقة شرفت كجرت مرة بقات عزونتيد إن أنا كغيب قاتو برنامج كاجا ما أنت وحن كهالينا محوي هاي تايرويد يو نباتوين كو تايرويد كليه تايرويد كوا قجر كويا لدونتا أو فالفا محن كلها باترفلاي أما بلانباليس الصومالي ده هو الجهاي دعان وصوصارا لقى مارمان نواي من ولان كانوا لأنتيسا دعان أيو صوصار دعان كاسو كغيب قاتو جوبيتانكا أو سكرتا أما محن كلها جيركينا ميتابوليزما قفا دا عدك وجو آيا رمل حسين عدك هذا سيدو يهاي مهم أي نوت هاي إن عدك إنه وصفة على الله مخلوق وأدينك أتصفة عنه مخشان إن شاء الله برنامج كسا أوسي دادهينو إيه سوقر عندو عدك أوكي هاي سي أن أوسي وضلو إن شاء الله marka khanjirkaas oo balanbaalista oo ku yaalo dhunta ku yaala yar oo gaaraya 30 gram gaaraya dhacaan soo daaya oo T3 T4 la dhahayo dhacaankaas wuxuu jirka u isticmaalaa gubitaan ama metabolism waxa la dhaho cuntada inuu shiido oo na gubo ayuu aad u isticmaalaa marka waxa ku dhici kara khanjirkaas laba ama inuu aad u shaqeeyo ama inuu san shaqeynin oo shaqadii gabo ay noqon kartaa markaas qofku wuxuu la soo baxaya calaamado sida calaamadaha hadda haduu markuu low yahay ama yar yahay waxyaabaha lagu qoro qof oo lagu garan karo waxa waaye wuxuu horta aad ugu badan yahay haweenku aad ugu badan yahay markii 40 oo kale la gaaro waxaana aad loogu garanayaa qofka daal uu dareemaya daal aad u tiro badan uu dareema caajis tiro badan uu dareema cuntadii appetite-ka xoogaa ka dhumayso maxaan ku dhahaa waa cayil zaid oo imaanayo oo san garanaynin qofkii ma rabaayo inuu sameeyo maxaan ku dhahaa inuu hool qabto iyo ma rabaayo maxaan ku dhahaa calooshiya istaagayso constipation oo ku dhacay musqusha ma aadayo maxaan ku dhahaa ma gubayo wuxuu aad u dareemaa qabowga waqtiga qabowga la gaaro Yurub dadka jooga qabowga zaid qabowga u dareemayaan marka dhibaatooyin aad u fara badan ayuu macnaa marka uu low u yahay ama uusan shaqeynaynin oo uu imaanaya marka uu aad u shaqeynayana wuxuu noqonayaa tan marka uu low yahay aan dhameystiro ay adiga doon aad gali doontid wuxuu keenayaa brainka maadaama uu dhacaankaas u baahan yahay ayaa depression uu keenayaa taas adigan ku dhaafaya tan labaadna marka uu haa yahay ayaa qofku wax waay appetite aad u badan oo wax cunaya waa caatoobaya miisaanki u dhuminaya nervous opposite-ki waaye hurdadiya ka tagayso stable ma noqonayo waa carab badnaanaya ilaa iyo xataa calaamado waxa ku arki kartaa indhihiisa xataa banaanka mararka qaarkood isoftalmidaan inay soo baxaan banaanka u soo baxaan ayuu keenaya sweat tiro badan dhidi tiro badan timaha oo jileec noqdo lafaha oo qafiif noqdo metabolism waxa aad zaid u noqonaya ilaa uu heer psychosis oo galayo oo qofkii nervous oo noqonayo oo aad u iman karo symptom oo qadi kuugu imaanaya oo tahay psychological symptom kuugu imaanaya psychosis na waa adiga dadkii waxa ay dadka maskaxda ka maqlaan ما شاء الله أدي أدب أقوم أحسن تهاي وأنا أركي أدتك ما عرفت وحي سوق قرية أدت قارو حلي أنيقا قبا
qaar yani symptomka siduu soo sheegay insha Allah haddana hadhowdi summary ayuu ku celin doonaa anigoo aan ka hadli doona sababtoo ah bodyga iyo brainka iyo maaragtay wixii medical ah iyo maskaxda way isla socdaan wixii ka dhinaado jirka ka gaasirmo ama maskaxda hormonkeeda ka gaasirmo qofka dhibaato ay u keenaan depression sida hadda for example oo kale markuu hyper noqdo waa markuu qofka depression uu ku ridayo sax marka hyper markuu noqdo hyperka waa kan anxiety so markuu depression ku ridayo qofka astaamaha uu ku garan karo waxaa kamid ah waa inuu murugo qofkaas uu dareemo sadness murugadaas oo waliba oo ku sii abuurto inuusan qofka uusan raadsanin help ومعرفت وجرن وين ماشي لقى هايو هردة ساشك توكل قف هردة إنه قطو إنه سكو هردة وزومبي مركي دم بالنقطة وحول بيعني سوق نولش يصير بساكل إنه قطو إنه سوق عادي يستوعن تيو عندنا هردة يكون نقطة يعني وصل لحانين وحور صعد لك عاجز كيس اعتراض بدته وحكم يده كل هردة مركي قفك كتكتو إنه قفك أسؤله وحبا إيجا قلدن وحبا سي إيجا وأسيج نفتيس ولا سي هذا مركب dhibaatadaas maadaama ay jirto thyroidka ahaan maxaa isleedahay causes-keeda exactly waxa keeno in Safiya waxaan u kala qaybinaynaa markuu low noqdo iyo markuu high noqdo waxyaabaha aad ugu badan oo hadda markaa 4 sano ayaan ku dhex jirnaa oo sanadkii shanaad aan ugu jiro waxaan aragnay cusbada oo la yiraahdo iodine ayaa aad u isticmaala thyroidka meelaha London oo kale iyo waa ku yartahay cusbadaas marka markuu waayo cusbooyinkaas la waayo ayaa waxa dhacaysa in uu aad isforso sameeyo macnaha inuu dadaalo hadhow kaasoo keenay inuu barar imaado ama goots oo noqona uu soo bararayo uu weynaanaya tan kale oo kawsaha ugu badan oo haweenka maadaama ku badan yahay saataqaanid haweenka waxa aad ugu badan autoimmune cudurada loo dhaho jirka asaga isweeraray waxa hargab ama cudur oo ku dhacay antibody loo soo saaray ayaa la mid noqonayo markaas weerar ku qaadayaan wuxuu qabsanaa thyroidki waxa aad ugu badan oo baabi'inay sida Hashimoto oo kale waa autoimmune disease oo ku dhaco ayaa keeni kara mararka qaar koodno hypothyroidism wax la garanayo for example qof laga saaray oo cancer laga shakiyay hadii daawada sidii aan loogu talagalin uu soo qaadan hypothyroidism depression uu galaya ilaa sometimes xataa waxaan aragnay كومو كوجري يمن مران جوجي مركا كاوزها وحوا autoimmune دفاعي وير أو رجوس أو قاعدة أي كيناي بالعكس كان كلامنا أو هايبر مركو نقولنايو قارب بدن دلنيرتو كبدي هايبر كان هايبر زايد كيناي أو زايد ول زايد أكان يسايكوزي كيناي وإيجا يقدر كوبلا من المهو كله كان هيبر بدنا تين إيج كا أيوة عاد وقبل الأوضاع إلى 24 25 أو كله هايبر أيوة وكل عكرايا مركا كواس مركا وحيابها كينا يا وحي كم تهاي إن وح جودها كسر اسمه تومور small tumor أو صوص عرايا قنجركي لعن كسي بدن صوص عرايا أيها كميت مركا ولا راديا إسكان على صارا تريتمنت هذا وسهلا أنت وحسيان iodine أو معنا أو بحني سراجوين أيها الله سياسي لوجا بابي sometimes ولا غلا ولا جبحيا أيها الله سمايا واحد جرد grapes عذر ده هيان antibody أيها وحول لما قلنا لم ينقلنا يصير TSA جا thyroid stimulating hormone كا دعان كي تجا thyroid كو تجا أو كعناية اللي مسكح ذا حكونته أيها antibody كاسو أكلا صوص عرايا مركب thyroid كمركب أتجو thyroid كو حصوص عرايا دعان أتبرا بدن grapes أروم عوا كاسو حك زائد واي وكعناية marka kawsaha waxa way midna autoimmune noqon kara midna maxaan ku dhahaa tumor ama waxyaabo yar oo ka soo dhax samaysmay ayuu noqon karaa raajooyinka dadku ku dhacay laftirkooda ayagan dhibaato ay keenayaan oo maxaan ku dhahaa problem ay u keeni karaan waa in qofka saa ogtiin oo hadii qofka uusan help raadsan ama astaamahaas uu dareemo uu isla markii raadsan ka waran dadka patientiga oo markay dareemaan أقصدي بهلب راسدة treatment كسدة ما دام فاضل صفية سؤال ونكسنا يوديسي سدح شيء وجوب بضن وضدك تعبان كده أو لا تعبانة وحواي هذه أنيميا كده عض ايرون تود هوس كده عض هذه فيتامين دي كده عض هوس كده عض تنسدح هذا إيمان يسوع سوكل يزبوسكو وتايرد هدوسن شقينيني مركو قف كدوسكو أركو واحد حلاقة بارو أما جي بي هتاجو أما برايفت هتاجو ماشي لو هنقول سدح ذا هلا بارو سو مدوا ايرون مدوا فيتامين دي iyo thyroid problem saddexdaas way kuwaasoo ayagana markooda keeni kara xataa sida hadda thyroidka separation
adiga kugu imaan karaan depression ama haddii hyper uu yahay ama aad u shaqaynayo wax lagu keenaa cunugan ama wuxuu qabayaa meel ma fadhiisanayo waa zaa'id waay markaas adiga aad dhehaysaa bal aan baar organically waa agitated waa nervous wax yar uu ka xanaaqaya markaas waxaad fahmaysaa oo adigina psychologically u daaweey haddana waxaad baaraysaa thyroidkiisa exactly ma sha Allah aad iyo aad waxa ka dhawaajisay waxyaalaha ugu muhiimsan haddaan ka hadla dhanka kale oo yani qofka inuu iska fiiriyo symptomko kale ciyaalka saa sheegto kale moodkooda bedelmo dadka waaweyn qofka saa ogtihiin horta depression anxiety iyo waxyaalaha markaan ka hadleyno medically way cause gareen waa sida hadda thyroidka waxa uu keeno hadduu hyper noqdo ama hyper hoos u dhaco ama kor u bato laakiin waxaa kasii muhiimsan oo aniga aan markasta la yaaba dhibaatooyinka kale qofka ku hareereysan يعني نلش قفك يعني برشيد وكنوليا أما جورج وكنوليا أما ما عرفتي نبعتذ عقبات ده هيسته ويكسي زائد سا نبكى ثايرويد كمركو جرو أما قفك مركو ديبريشن كجرو مركو وإنه مركو قفك اسمي زامو وله بل ما هذا ده وحي كله هرده ده يقول بدن وين هرده عاجز كي يعني أبدا وحوم الدخاخو ده تكسو كل وإني تشيكين سميها نفتو دي أجيك جريان باران كوهرت ميديكلي آذان إنهم كل لمي ميديكال أسكو فيري دن مركو أوجادو ودنك سياد أوجونا اللبضة ويسكو حيرين أديات أدو ميديكالي قفك هوس نقضو psychologically exactly so إن شاء الله برنامج كان وحن قلت لقلنا إنه awareness إنسيو إنه يعني إنها يدين فرو هذا أستعمال سيمتوم كوشاجي دكتور أبشر أسكدرينتيد وإنه help راسيتي هذه أسكدرينتو يعني وحيالها psychological كل اللي فاقسن oo aad dareentid hurdadaada badan hurdado ama kugu yar appetite-kaaga kale ama aad dareentid in mood-kaaga marna uu faraxsan yahay oo isbedelayo in aad naftaada miisaanto aad tiraahdo okay maxaa iga qaldan ma iron-kayga yar ma vitamin D-gayga yar inaad talaabo qaadid oo caafimaadkaada ula socotid ogowna soon uu qofka bilaabo inuu ogaado waa the better qofka uu maaragtay dhaqsi uu daawadeeda uu helo otherwise wadada sii jiifisa صح aad Safiya waxaan ku dari lahaa qofka labada dhinac buu ka bilaabi karaa oo dhinaca psychological Safiya intuu yimaado ayuu weydiisan karaa oo Safiya weydiri kartaa hadhow organic baari kartaa ama dhakhtarku ka bilaabi karaa caadi ah oo dhiigga marka la baar hadii wax laga waayo Safiya u tag ayaa la dhigi karaa oo psychological loo daaweyn karaa marka waa labada dhinacba way u furan tahay qofka marka waxyaabahan oo kala la kulma especially wax psychological depression ha noqdo anxiety ha noqdo psychosis ha noqdo markii ay ka bilowdaan iyagoo ay yihiin cudurro gaar ah oo waxyaabo kala cause gareyn kara ayaa hadda waxaan focuska saaraynay in thyroid uu ka mid yahay waxyaabaha dhibaatada u keeni kara dadka bini'aadanka ah labada dhinacba uu ku ridi karo iyo stresska xataa ma dhihi kartaa qof noloshiisa kasoo qaad wuxuu maray dhibaato family burbur oo kale ama waxyaalaha ku soo kordhay dan stresski qofkaas wuxuu noqday haya inuu qof nasan yani mar walba culay saaran dhibaataysan ama iskaba dhab hooyo kaligeed oo kale ama aaba kaligiis oo kale ah dhibaatadii markii ku soo kortay ma u keeni kartaa thyroidka waxyaaba kasoo bilaawatay psychological and medical medically waxyaabaha oo keeni karo oo maxaan ku dhahaa waxyaaba aad ugu badan waxaan dhahnay hadii lacala uu eber noqdo qofka hadii cunadii raashinkii waxyaaba ka bao ama yoodiintii la qaadan lahaa oo loogu talagalay waxyaabahaas haduu ka go'o thyroid si indadban ayaan u dhihi karaa uu u imaan karaya for example wadaan ku sheego qof ayaa isbitaalka wuxuu u tagay wadna xanuun waxaan ku dhahaa arrhythmia oo kale problem noocaas uu tagay waxaa la ogaaday sida loo baarayay dhibka dhan in uu ka yimid thyroid uu ka imaaday ayaa la ogaan karaya marka si in dadban ah saa sheegaysa stresska walwalki iyo cunto la'aantii family history-ga very important way tan kalena xagga oo dhaxalna uu jiri karaa qofka haddii waalidkiisa ama relative-ka ay qabeen problem oo thyroid ah wuu imaan karaa haddii uu la kulmo xaaladii uu ku dhici karayaa cudurka thyroidka ah ama ha noqoto high ama ha noqoto low labadaba okay masha Allah aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay sida aad ma aragtay noogu sharaxday aniga xataa aan kaga faa'iiday in badan dhibaatooyinka uu qofku u keeno iyo meesha uu ka bilowdo adinkan waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin sababtoo ah labadaba dhinac fiiri haddii psychological issue oo naftaada ay kusoo korta aragtid qof raadso oo maaragta ama either private ah oo kaa caawiya haddii aad dareentana symptomka uu sheegay Dr. Abshir uu ka dhawaajiyeyna
si ay maskaxdaada u fiyowaato waxaad raadsataa caawin ayada GP-gaaga u tag ama waxaa u tagtaa private si aad ku ogaatid dhaqsadiiba loo caawiyo aniga waxaa aaminsana Safiya ahaan in dhaqso haddaa naftaada aad ku caawisid oo isla markaa symptomka la ogaado inuu ka baskoon og yahay kan maaragtay qofka ku daaha dhibaato weyn ay keentaa waana mahadsantihiin insha Allah waxaan idinku codsanaynaa share gareeya si dad badan ay u gaaraan dadaan ogeyn oo thyroidkaas dhibaato weyn uu ku hayo oo aanan raadsan ayada dhakhtar aan raadsan ama yacni wax help ah xataa GP-giisa aan u tagin oo dhibkiina uu sii kordho hadhowdu dhibaato weyn usii kordhiyo so insha Allah waxaan nagala soo xiriiri kartiin anigoo lambarka aan dhigi doono meesha waxaan saari doonaa markaan hadda aan damiyo shaashada korkeeda saari doonaa meesha aad kala soo xiriiri kartaan Dr. Abshir oo aad kala heli kartaan London meel kastoo aad joogtiin وانا ما حسنتين ما حكوا سكر لنا هذا waxaan ku dari lahaa kaliya dad waxa jiro loo soo qoray daawada oo la dhahay thyroid laga hayo maadaama aysan fahamsaneen daawada iska tuuray kaas marka dadkaas ayagana second opinion tala kale way u imaan karaan way weydiin karaan wuxuu uu yahay dhiiga loogu celin karaa wala baari karaya dadkaas aad muhiim tahay because thyroid ki dhanba ma fahamsanaba daawadii la soo sii thyroid kaaga eber ah ma uusan qaadan wayna igu dhacdo waana arkay dad ay ku dhacdo so taasna waa muhiim ka taxadar naftaada wixii aadan ogeyn ama aadan fahamsaneyn u raadso qof kale oo maaragtay ka qanciya ama qof kale oo ka cilmi og oo ka aad kaga ogaatid si aad hadhoodid sida hadda for example oo kale long time ahead waxaan dhakhtarkan u tagay wuxuu ugu sheegay nerve ina lugteeda maaragtay nerveheeda aan u baahanahay sanadkiistaba ina isduro وعربت عن قاتل نيرفها لكن كما إكان NHS كما إكان جرمال كان تيجي وحاول تيجي second opinion محن سو وجاده إن فيتامين D تهاي إسن سأوسي دارن ونيرفه إسن داوع نبغى جارسي سنين أنا بحنم بحنم بابيا ما شاء الله so تاسن ويد عذاب هذا ونكسنت هذا الشطة second opinion كلا قاعدنا I love it because عادي أول فرحة يعني تسمر كان حاجة تيجي صوفته وحبا يجيب الدلمي دخترك كلا عن لها لا باريتان كنيجي اللي وعليه هذا الإسكان كي سيتي اللي صاري وحوين وكبدله so إن شاء الله مش هسنقل سحرير كتير وأنا ما سنتهين أنه وأنا كسي بحدونه كود دال صاد وشير جرين لهيدن سيدت بدن وجاران وإوفا إذا هدو إله إدمه وحنسكت دينا إن شاء الله إن يوتيوب حتى أبلود كسمينه وأنجلينه وحي سؤالنا مش إنه قريب لمبر كنا مش عندي دونا أدينا أدب وما سنتهي جزاك الله سيدا أدب شدو عاوني سيد وأد ماركت وقت قال وسينيس أديك واحد الشقة دير كبحي ودالم بواسني كنت قف هذا ساعة شغل سوق اللي هذا تجري وهذا أنا كوسي درك ورم ما شاء الله يعني هذه بس كم إذا أنا أبغى شغليني سي صح وما سنت ما شاء الله لا تفعلنا عاونا أي ما إننا فهمان إن شاء الله صح وأنا ما سنتين السلام عليكم عليكم